ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ahaa nin kulli anigu aan ixtiraam fara badan u hayo welina u hayo nin dhalinyaro codkara meel mara siyaasadda isagiyo madaxweynihiisuba ay si غير العادي ay wax uga bedeleen siyaasadda ilaa burburkii Soomaaliya ku soo jirtay maanta oo fiina la joogo hadallada ka soo yeedhaya ee maalin kasta hadalkii mucaarad ku hadlaya kuwa kuraastiisa doonaya ee raba isaga inay meesha ka qaadaan hadalladii ay isticmaalayeen inuu isticmaalo aad baan wax umahay waxa jira qori la yiraahdo hoobiye dagaalka lagu galo wuxuu leeyahay badhama laga rido siyaasaduna waa hoobiyaha soo kale badhamada qayb baa jirta marka la taabto oo ninka ridaya uu taabto badhan cas oo xabadu markay qoriga ka baxdo qoriga afkiisa iyo ninka ku soo noqoto badhanka siyaasadeed uu hayaa Khayre ama ra'iisul wasaaruhu baryakan waxaad moodaa badhankii casaa ee hoobiyaha xabada ka baxda afkiisa ku soo noqon jirtay ninka ridayay qoriga ay gubi jirtay ma rabo inaan dhaliishiisa maanta halkan ka sheego waayo dawladda waqtigeedii baa iska dhow wax badanna waa la soo qabtay laakiin waxaan rabaa inaan ra'iisul wasaaraha yaro taariikh uga sheekeeyo dhowr iyo kontonkii xilligii gumaysuhu waddanka haystay Talyaaniga iyo Ingiriiska Soomaaliya haysteen ayaa nin la yiraahdo Maxamed Nuur Fadal baa wuxuu joogay guriga la yiraahdo Kenya wuxuu ahaa nin aad iyo aad qaali u ah haday tahay deeq haday tahay hanti haday tahay dood haday tahay hogaamiyenimo haday tahay codkarnimo wuxuu ahaa nin ummadda Soomaaliyeed ee Kenya degan hogaamiye waa nin qaali ah oo qaab sandaladeed u samaysan wuxuuna ahaa nin reer habar jara oo caana oo raggi markaa xilliga waddanka Soomaaliyeed ee dhashay ama joogay raggi ugu firfircoona ahaa deedna waxaa dhacday sandaladiisa waxaa nin hanti fara badan haysta meel marana ah hogaamiyana ah niman ay isku isaaq yihiin oo garxajis iyo niman la habar awal baa waxay waddanka mar hadaad haysatid waxaan rabnaa kursiga kan aad adigu ku fadhidid iyo sandaladaada ka labaad ku xigeenkaaga inaanu noqono qolada garxisna docbay ka soo tartantay qolada habara wala docbay ka soo tartantay qolo kasta waxay soo diyaarsatay inay ku xigeen u noqoto Maxamed Nuur Fadal codsigaasi isagoo hor yaalo oo qolada garxis iyo qolada habara wala labadiba codsigoodii ay soo gudbisteen sandaladiisa inay ku xigeen ka noqdaan ayaa habeenkii waxa uu yimi nin arab ah oo ay qaraabo yihiin oo xilli yihiin ladaninkii baa wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan kula shaqeeyo ku xigeen ku noqdo aad qaadatid labadii qolo oo waliba halkan fara badan la soo galay oo miisaankooda leh intuu ka leexday wuxuu qaatay ninkii arab oo ku xigeen ka dhigtay oo sandaladiisii iyo taladiisii iyo hantidiisii iyo dukaamadiisii iyo wixii oo dhan ku aaminay nimankii garxajis iyo awal arintii way qaadan waayeen mucaaradad xoog leh sameeyeen Maxamed Nuur Fadal ku sameeyeen muddo hadii ay mucaaradadii ku wadeen waxna ka qaadi kari waayeen oo ninka kan meesha ka qaado anagu aanu booska buuxin anaga xaq u leeyahay isna uu ka diiday aanu Fadal uu ka diiday inuu ninka arab meesha ka qaado ayaa waxa dhacday maalintii dambe qoladii labadii qolaa shirtay mucaaradka waxa la yiri warninkii mar haday uu isagu waxna ka diiday ninba wuxuu yiri waxaan garanayaa diiriye la yiraahdo wada aan ninka kaga takhalusi karo sheeg baa la yiri wuxuu ninkan arab uu qaatay ku xigeen ka waa baan isticmaalana isagaana ninka ka takhalusayo warninkii uu isagu qaatay ee kursiga ku xiga fadhiyay ee uu inoo ka hiiliyay sidee baynu ugu la tagi karaa arinta waraniga aqaanay buu yiri iska daaya ninkii arab loo tago waxa lagu yiri waxaan loo warramo wax la yiri qorobta niyahow miisaankaaga iyo maanta kalsoonida ummaddu kugu qabto iyo teetalkaaga anaga banaanka joogno Maxamed Nuur Fadal adiga ka magaciyo maamuus weyn
ummaduna ku doonaysaa siyaasadda iyo sandaladdu sida qolyahan hadda ay isticmaalaan waa give and take waxaan doonaynaa inaad ninkaa bedeshid adigu meesha qabsatid sidee baan u bedelayaa buu yiri ninku mar hadduu ku aaminsan yahay sumeeyo ka takhallus baa la yiri waa yahay buu yiri kiila baa loo soo dhiibay sunta libaaxa kiiladiisii buu iska soo qaatay ninkani waa nin aaminsan yahay maxamed nuur fadale maalintii dambe qadadii buu wuxuu ugu soo iidaamay isagaa dee jiif iska afahaaye wuxuu ugu soo iidaamay suntii maxamed nuur fadal waxaa nin ilaahayna jecel yahay ummaddiisuna jeceshahay oo meel mara oo aad u deeqsiya oo xabiib ah oo calool wanaagsan sirmaqabe allah u sahana oo dadka iyo duunyada iyo dugaaga intaba dhaqaaleeya intuusan qadadii afkaba saaray sumaysan afkaba saarin ducad wuxuu tuuray bisadii guriga joogay bisadii markii waa galgalato waa qayris nafta ka baxday deeqada qadadii isaga dadkii waa arkay iskaftiya wixii isugu yeeray arrintii baa la baaray inuu ninkan qadada soo sumeeyay ninkii ku xigeenka waxa uu nimanka uga hiiliyay ayaa la ogaaday maxamed nuur fadal gabay dheer buu mariyay oo caana wuxuu ninkii aan loodaydii caseedlaanta ugu duugay ee aan dukaamada laladan laba u siiyey aan lacagta jeebka ugu guray loon la hiicayda wax la liqiyo xoolaba ninkaan ugu laxaad yeelay aniguba leebkii warmaha ay lisanaya waxba niman lileeyni buu luqadii raacay watay liciinkii maqleen laabab kala ha maliibaanihii diriya loo xudaabay markuuse sida lubiga qaawanaa ee leylka soconayay aad luqufka qoodhaha markii hore goor habeenimo uu yimid markii uu dooranayay markii sida lubiga qaawanaa leelka soconaya luqufka qoodhaha dameer lulaya moodaysi hadii aan linkuxo oo qalbiga lahashada u diido aan luunkaba ka rogin lurima gaadheen ugu weyn liitiya haween la xamkood baday waa waxa ray uu leexsadaa la xam dhaqaaqa in kasta ladaad iyo baruur laqanyada asiiso lagninkii cusiyay dishaaliisha doqoneed afar laba lix goor buu sida iga loogsaday waxay 12 jeer miyaa liidnimo raacday ra'iisul wasaaraha ku fogaan maayo waxaan sareeyay waxaan nasiib darray adigoo aqoon yahana oo maanta muddaxileedkiiniba iska dhow yahay raggii kursiga kugu haystay inay ka aqli badiyaan oo adiga lagu isticmaalo oo adafkoodii ku hadashid oo sidii hoobiyihii qudbad